kusoo dhawaada qaybtii saddexaad sheekadii cirbadii alkarabtay sheekadan waxaa qoray Abdullaahi Saalax Axmed waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Jirowa waxayna ku bilaabanaysaa waxaan ahayn qoys danyar oo degan mid ka mid ah xaafadaha isku raranka aabahay waxa uu ahaa sariiryaal xanuuno jilciyeen sida macaanka iyo dhiigkarka waxa uu sii darsumay hooyaday waxay meherad yar oo shaaha lagu kariyo ku lahayd meel aan gurigayaga saddexda qol ah aan ka daroqsanayn aniga ayaana wax caruur uga joogay iskuulka fasalka afraad ee dugsiga sare markaan gudagali lahaa ayaan isaga haray caawinta qoyska oo la iga maarmi waayay darteed sabab dhaqaalana waa ay jireen waxaan bilaabay inaan nadiifiso ka noqdo cusbitaal xaafadda ku yaala oo aan labada gelin oo waqti u dhaxeeyo ka howlgali jiray waxba iska bedelay dhaqaalihii xaafadda hooyo ayaan ku qanciyay inay iska dhaafto shaahan karintiisa aabana ay ka warhayso muddo haddaan shaqadii waday ayaa duhurnimo talaada fariinii soo dhacday anigoo isbitaalka jooga qashin cirbada u badan aruurinaya waa hooyo degdeg baan telefoonka uga qabtay waxaana ay ii sheegtay in aabe aad u xanuunsan yahay dhaqsana la igu baahan yahay walwal hor leh ayaa igu bilowday waxaana bilaabay dadejinta hawshan faraha ku hayay wixii aan tiigsan karay ee saarnaa miiska ii dhow ayaan gacanta soo mariyay saliingo aan fur lahayn oo miiska saaranna waan haabhaabtay inaan daboolaan damcay ka hor intaanan qashin qobka ku ridin si lama filaan ah ayaanse isku dhaafiyay cirbadii iyo daboolkeedii afkii dhumucda yar lahaa ayaa jirkayga dhex galay waxaana ay damqisay cirbadii oo ku libaqday jirkayga laftana ka shanqarisay waan iska saaray dhiig badan ayaa iga baxay waxaan u cararay dhanka isbitaalka gudihiisa markiiba waa la iga dabiibay oo waxaa lagu dhajiyay sharooto iyo faashad si dhiigga loo joojiyo waxaan maamulka u sheegay in aan fasax u baahanahay aabahayna uu xanuunsan yahay sidii ayaana kaga baxay isbitaalkii xaafadda haddaan soo gaaray waaba xaafadii oo lagu booqsan yahay in yar markaan u soo jirsaday ayaa walwal igu bilowday shaydaanka ayaan iska naaray horaan u soo tallaabsaday gudaha markaan soo galay ayaa islaan gacanta i qabatay docna ila baxday waxaan damcay inaan iska fujiyo aad ayayse ii qabatay qol lagu booqsan yahay ayaa indhahaygu qabanayeen sawaxanka ayaa dhagahayga soo gaarayay fikrado badanna maskaxdayda ay ka soo baxayeen hadal badan ayaa islaantii isdaba dhigtay waxaanse ka fahmay hooyo noolaba waa dhintee ilaahay aabba ha u naxariisto samir iyo iimaan allaha inaga siiyo dhintay yaa dhintay waa kuma aabe meeye ayaan ku celceliyey waan soo cararay waxba sama qaban karin qolkii haddaan soo galay oo hin aad moodid in layla sugayay ayaan isku jiibinay bilo ayaa ka soo wareegtay geeridii aabe noloshayaduna way isbedeshay xillo aan qiyaas lahayn waan dareennay aniga iyo hooyana waan isu harnay waan isweheshanay wax kastoo ii ahayd balaba jibaarkeed baan isu noqonnay dhowr goor ayaan kula taliyey inay iska nasato shaqadana iska dayso wayse iga diiday oo bil kadib geeridii aabe waxay dib u furtay meheradii shaaha sidii bay howluhu u socdeen farxaduna way isi soo taraysay waa adduunye shalay murugo ayay ahayd maantana waa inagaa soo kabanayna berrina xagga alla ayay inaga xigtaa waxa dhici doona casar gaaban bay ahayd markaan shaqada ka soo rawaxay anigoo aad u daalan ayaan u soo luuday xagga xaafadda waxaan soo maray meheradii hooyo si aan isu sii raacno intii aan maqrib la aadiminba ka hor haddaan meheradii soo gaaray wayba xiran tahay waxaan maanta hooyo dadejiyey waa maxay anigoo isleh qofna aan weydiin ayaan qumaati u soo abaaray gurigii waa maxay hugunkani waa meel iga horeysa oo lagu xoonsan yahay bal horay u dhaqso aad ogaatida ayaan iskula hadlay markaan u soo dhawaaday sidii niyaddu igula faqaysay bay noqotay oo shil baa meesha ka dhacay gawaarise ma arko sidee wax u jiraan horay ayaan u soo tallaabsaday ugu dambeyntii waan soo gaaray dhiig aan yarayn ayaa waddada meel dhinaceeda ah yaalla
dadkuna ku xunsan yihiin madaxa ayaan kala soo dhex baxay tobanaan qof oo meesha taagnaa mise qofba meesha ma yaalo oo waa dhiig kaliya dadkii waan warsaday waxayna ii sheegeen in qof dumar ah meesha gaari ku jiray wadnaha ayaa hoos ii ruqay waxaan si fudud isku iri waayo qofkaas dadkii meesha joogay ayaan warsaday qof ii tilmaamay waa waayay waxay ii sheegeen in dhowr daqiiqo ka hor ay ambalaas u qaaday dhanka isbitaalka man sii wareysane anigoo sidii u naxsan ayaan xaafadii beegsaday dhowr luuq ayaan sii dhaafay xaafadii waan soo gaaray mise waa xiran tahay naxdintii waaba ka sii dartay oo markan xaaladii waxay u eg tahay cabsi xaafadii dariska ahayd ee aysan hooyo weligeed salaanta la soo dhaafin ayaan weydiiyey naxdin weynaa waxay ii sheegeen in aysan hooyaba arag orodkii aan soo qaadnay aniga iyo laba hablood oo xaafadda dariska iga soo raacay isbitaalka ayaan ku nimid qolka xaaladda degdega ah ayaan tagnay waxaan soo qabtay mid ka mid ah kalkaalisooyinkii si aan u warsado qofka meesha la keenay markiiba waxay ii sheegtay in cid loo la'aa bukaanka qaliin lagu samayn lahaana dib loo dhigay kadib markii dadkiisii la waayay anigoo ilmeynaya ayaan degdeg qolkii u galay mise waa hooyo leen naxdin looma dhinto sidii aan u ooyay maalinta weligay uma aanan ooyn intaan xasuusto xitaa maalintii aabba dhintay hooyo miirbeel ay ahayd shilka lugta bidix oo ilaa miskinta dherarsan ayuu ka soo gaaray madaxana nabarro aan yarayn ayaa kaga dhacay dhakhtarkii waxa uu sheegay in la doonayo in dhiig loo shubo muddana la la'aa qof ay isku dhig yihiin oo dhiig looga shubo wuxuu isagoo niyadda ii dhisayay igu yidhi adeer waxaan ku rajaynayaa inay hooyo ku caafimaado kaalay dhiigaaga hala tijaabiye waan soo dabagalay dhiiggiina iga qaad meel aan ka durugsanayn ayaana fariistay waxay gudagaleen hawshii looga baahnaa daqiiqada kadib waxaa wejigooda ka muuqatay madow aan kolkii hore laga dareemayn dareen eegis dheeriyaha ay ku dheehan tahay anigoo hibitiqaya ayaan ku idhi isku dhig ma nihin miya maya ee naga warsug ayay igu yidhaahdeen madaxa ayay isla galeen hoos ayay hadallo isu weydaarsadeen orod badanna waa ka dhacay shaqo culus oo dhaqso ah inay hayaan ayaa dareemaysay hawshoodii inay ka farxasheen ayaan xaqisaday waa kan dhakhtarkii niyadda ii dhisay markii hore igu soo socda wuxuu yidhi adeer isku dhiig baa tihiin iminkase dhiig lagaama shubi karo ee qof kale waa inaad dhaqso u doontaa anigoo ku xisaabtamaya wakhtiga yar ee aynu haysanno waan naxay runtii waxaan weydiiyey oo sabab maxaa diidaya dhiigayga waynu ka wada hadli doonnaa adeer ee niyadda khayr u sheeg ayuu igu yidhi isagoo ii muujinaya degdeg iyo muhiimadda ay leedahay hawsha uu hayo muddo ayay nagu qaadatay inaan soo helo qof hooyo la dhiga ugu dambayntiise waan helay dhiig shubistii waa la dhameeyey habeenkii oo dhan aniga iyo labadii hablood hooyo ayaan dul fadhinay ilaa ay waabarigii soo miirsatay indhaha ayay kala qaaday mise hadli karayn waxaa degdegna looga soo saaray qolkii hooyo qolkana qaliin ayaa loo diyaariyey dhakhaatiir badan oo isdaba yaacaysana waa ayna dhaafeen 2 saac iyo wax dheeriya ayay qaliinka ku jireen ilaa markii dambe ay ka soo faaruqeen markan waan badannahay oo xaafadii dariska ahayd ayaa dad ka mid ahi garbahiga tuban yihiin dhakhtarkii oo nagu soo socday ayaan ku yaacnay wuxuu isku dayay inuu nadajiyo hal mar baa la wada aamusay qaybtii labaad ee sheekada cirbada ee laga reebo waalidiinta fadlan si aad u hesho qaybta saddexaad kanaalkan soo biir oo rukumo kan baleelkan furo intaan ku kulmi doono qaybta saddexaad nabadgelyo